بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaasha qiimaha leh kusoo dhawaada mar kale shabakada At-Tawba ee casharkeena saddexaad ee fanno tacaamul maca al-atfaal oo aynu uga hadlaynay tarbiyada carruurta iyo barbaarinta wanaagsan. Casharkooda waxaynu ku qaadanay 4 qodob oo muhiim ah in qof kasta ee doonaya inuu ilmo tarbiyeeyo inuu ogaado, oo culimo tarbiya ay dhahaan 4 qodob waa sheegagga tarbiyada ay ku taagan tahay, oo haddii mid kamid la waayo sidii la rabo ilmaha loo tarbiyin kareynin. qodobka ugu horeeya waxaynu ku sheegnay tarbiyadu mashruuciyan waxay tahay in la ogaado inay tahay waajib xaq oo Ilaahayna saaray oo ilmaheena ay nagu leeyihiin, oo haddii aanan markaa gudan oonan waajibkaas la iman loo ciqaabi doono. qofku inuu ogaado inay waajib tahay waxay fududeynaysaa inuu gudashadiisa ku dadaalo. qodobka labaadna waxaan ku sheegnay tarbiyadu inay tahay cilmi iyo xirfado in la barto ay laga maarmaan tahay oo aysan ahayn wax iska fudud qofku si fudud ku baran karo. qodobka saddexaadna waxaan ku sheegnay tarbiyadu inay tahay sabir iyo dulqaad, oo qofkii doonaya inuu ilmo tarbiyeeyo oo sida wanaagsan ee uu rabo inuu ilmaha ka dhigo فعليه أن يكون صابرا، إنه صابر دلقات بدن ونقض ما دام بين آدم أي يهين وحا ولا تعامله، أو لسد شخصيات بين آدم وناكسن، يعني شخصيات وناكسن بين آدم إنه إن لسايسن وحفظ أهين marka qofka inuu dulqaad lahaado waa laga maarmaan. qodobka afraad waxaynu ku sheegnay tarbiyada inay tahay shaqo iyo juhdi in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nooga miro dhaliyo maahna inuu ka miro dhalin kareynin. inaga dadaalka oo dhameystiran un baa nasaaran maahane aqbalka Ilaahay beetiisa tahay sida aan rabno in Ilaahay ilmaheenu ay noqdaan Ilaahay un baa ka dhigi kara. idan inaga waxa ina saaran in dadaalkeena la nimaadno Ilaahayna aan markasta barino aan ilmihii u duceyno oo sida aan rabno ilmuhu inay noqdaan Ilaahay weydiisano subhanahu wa ta'ala isaga un baa ka dhigi karayo inuu kama dhigi karnay. afarta qofku markuu ku baraarugsan yahay sida ay yihiin oo la yimaado oo dhaqan galiya ayuu noqon karaa qof guta xaqii iyo waajibkii ilmihiisa ay ku lahaayeen inuu tarbiyad wanaagsan uu siiyo. casharkan marka waxaynu ku qaadan doonaa ayna tabda tarbiya. horta tarbiyadu goorma ay bilaabataa, xageysa ka bilaabataa. 3 marxalo ayaan kala qaadi doonaa maraaxisha kala duwan ee ilmuhu ay maraan. marxaladda ugu horeysa waa marxalatu bacda alwilaada. ilmuhu marka ay dhashaan ee adduunka joogaan tarbiyad iyo cinaayo iyo ricaayo gooni oo hadba da'da ay marayaan la jaan qaado ay u baahan yihiin. tarbiyada maraaxisha kala duwan ee da'dooda hadba tarbiyada ay u baahan yihiin iyo sida ay tahay in loo tarbiyeeyo casharo gaar ah ku qaadan doonaa. marxaladda labaad waa marxalatul xamli oo ah xilliga ilmuhu ay uurka ku jiraan oo ka bilaabata habeenka adiga iyo lamaanaha isguursataan aad u diyaar garoodaan inaad ilmo tacabtaan ilaa ilmuhu ay ka dhashaan. inta u dhaxaysa ilmuhu waxay u baahan yihiin cinaayo iyo tarbiyo gaar ah oo markaa haddii ay waayaan tarbiyadaas iyo cinaayada marka ay u baahan yihiin noqon doonto nusqaan noloshooda saameyn xun ka yeelata. marka waqtigaasna tarbiyada iyo cinaayada ay u baahan yihiin ayana casharo gaar ah ku qaadan doonaa. marxaladda saddexaad oo ah marxaladda aynu casharkan uga hadli doono ahna waqtiga ay tarbiyadu bilaabato waa marxalatu qabla al-xamli oo bilaabato marka qofku uu mukallaf go'aamada noloshiisa quseeyo qaata uu noqdo ilaa uu ka lamaanoobo oo qofka uu markaa qof markaas guursada uu noqdo. waqtiga oo waqtiga dhalinyaranimada tarbiyada wanaagsan ilmaha xaq ay kugu leeyihiin waqtigaasna kaalin baa kaga aadan, oo haddaan markaa kaalinta kaga aadan gudan nusqaan iyo noloshooda saameysa ku noqon doonta. su-aashu markaa waxay tahay waqtiga marxaladda ilmuhu aysan uurna ku jirin adduunna aysan joogin maxay tahay tarbiyada ay waqtiga inooga baahan yihiin ama xaqa ay inagu leeyihiin waqtigaas ay muhiimka tahay inaynu gudano. waxaa la yidhi ninbaa maaragtay wiil u dhashay marka aad buu ugu farxay xoogaa ilmuhu kasoo daaheen buu ahaa nin markaa culumta tarbiyada wax ka yaqaano dadka talooyinkaas iyo qaabka ilmaha u tarbiyan lahaayeen intuu u tago wuri sheekh wiil baa ii dhashay waxaan rabaa marka wiilku inuu yacni nin fiican oo caynkaas ii noqdo sidaan u tarbiyeeya. marka sheekii jawaab ma uusan siin uu ka aamusay uu ku celiyey haddana uu ka aamusay dambe wuri sheekh maad yacni jawaab isiisid markaasuu wuri takhallafta can tarbiyati ibnika waxaan jawaab kuu siinay inuu wuri wiilkaaga tarbiyadiisa wadba ka soo daahdaba yacni xilligan jawaabta kaasii lahaa lama joogo. wuu yaabay wuxuu yidhi hadduuba dhashay 4 habeenuuba dhalin yaab isagana sidaan uga soo daa. wuxuu yidhi bidaayatu tarbiya awalan an turabbi nafsaka wa an takhtaara umman saalixatan. ugu horeynta tarbiyadu aslanba waxay ka bilaabataa kow horta in adigu naftaada tarbiyeyso, 2 inaad hooyo wanaagsan aad markaa ilmahaaga u doorto ama aad markaa gabar tahay aad aabbo wanaagsan aad ilmahaaga u doorto. labadaas haddii aad soo gudatay mar hore tarbiyadii soo bilowday haddii laakiin labadaas aanad gudan dee wiilkii mar hore dhashay hadduu dhashayna tarbiyadu dhalashadii markuu dhashay kadib bilaaban maysee intaanu adduunkaba iman inay soo bilaabatay eedo labadaas xaq aad marka hore horta soo gudatay.
xaqa ugu horeeya marka ilmuhu ay kugu leeyihiin waa anta kuuna saalixan inaad noqoto qof wanaagsan oo wanaagga looga daydo oo wanaagga uu farayo oo uu rabo in maaragtaan qofkan uu ku saameeyo kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato. nabiga calayhi salaatu wasalaam boqolkiiba 90 dadka wuxuu ku saameyn jiray dhaqankiisa iyo qaabka uu u yaala dadka ku ta'athuri jireen in ka badan waxa uu sheegayo afkiisa ka baxaya inta ay ku ta'athuraan. sidaa darteed tarbiyadu boqolkiiba 90 waa qudwa. haddaan doonayno inaan ilmo wanaagsan aan helno waa inaan noqono qudwo wanaagsan, inaan noqono inaga dad wanaag looga dayan karo, inaan noqono aabihii iyo hooyadii dad wanaagsan oo ilmuhu ay wanaagga uga daydaan waa inay noqdaan. sidee qofku marka uu qof wanaagsan oo wanaagga looga daydo ku noqon kara? culimadu waxay sheegaan 3 qodob qofku haddii uu ku sifoobo wanaag dambe u dhiman aysan jirin. 3dabana waxay dhahaan waxa soo koobay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii ittaqillaha haythuma kunt wa atbici sayyi'ata alxasanata tamxuha wa khaliq an-nas bikhuluqin hasan. xadiiskaas oo nabigu kula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam sida riwaayadaha qaar ay sheegayaan Abi Dharr al-Ghafari. xadiiskaas waxa ku sugan bay dhahaan culimadu oo nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam jawaami'ul kalimkiisi 3 xaq oo qofku haddii uu guto oo sida yihiin uu la yimaado uu noqonayo qof wanaagsan oo wanaag dambe u dhiman aysan jirin. xaqa ugu horeeya waa xaqa qofka ilaahi abuurtay uu ku leeyahay ittaqillaha haythuma kunt. meel kastoo aad joogtay xaalad kastoo aad ku jirtay ilaahay ka cabso. ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha uu kaa rabo inuusan kaa weyn, meesha ilaahay uusan kaa rabin inuusan kugu arag. wixii ilaahay uu ku faray inaad sida yihiin aad u qaadato, wixii ilaahay uu kaa reeban inaad ka harto. xaqa oo aad sida ay tahay aad uga soo baxdo waxaad ku sifowday qofka uu ku sifoobay khaslo ka mid ah khisaasha lagu yaqaano qofka wanaagsan. oo qofka wanaagsan waa qof ilaahay abuurtay subxaanahu wa tacaala yaqaano oo xaqi ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kulaha ka soo baxa. khaslada labaad ee qofka uu ku noqon karo qof wanaagsan oo haddii uu ku sifoobay qofkaas uu noqonayo qof wanaagsan waa qofku inuu naftiisa xaqa ay ku leedahay uu guto oo xaqa naftiisa ay ku leedahay uu ka soo baxo. wa atbici sayyi'ata alxasanata tamxuha yani naftu markasta oo amaaratun bisu xumaantay kula jeceshahay meesha xun kaliya unbay ay kuu jiidanaysaa. haddii xumo ay ka dhacdo naftaada oo arrin xun ay ka dhacdo wax xun ay ka dhacaan inaad wanaagga markasta aad barto ood wanaagga ku leeliso ood wanaagga daba dhigto wixii markaas xumaha ka dhacay haddii aad wanaag daba dhigto wanaaggu isaa baabi'inay marka dambena naftaada wanaagay baranaysaa in ka badan intaadii xumaanta ay u cararayso haddaad adiguna ula cararto wanaagga oo aad naftaada leeliso ood naftaada tarbiyeyso. taasina waa xaqa yani qofka naftiisa ay ku leedahay qofku inuu naftiisa tarbiyo naftiisa leeliyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka fi suurati shamsi in uusan ku dhaaran meel kale qur-aanka ka mid uusan ku dhaaran buu ku dhaartay washamsi waduxaa walqamari waidaa talaawana ilaa laga gaaro qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha. intaasoo dhan ilaahay wuxuu ugu dhaaranaya subxaanahu wa tacaala yani waa cadad meel qur-aanka uu sidaasoo kale ugu dhaartay aysan jirin. intaasoo dhan ilaahay wuxuu ku dhaaranaya subxaanahu wa tacaala nafta qofkii dahira oo yani naftiisa wanaajiya oo naftiisa tarbiyeeyo naftiisa dahira inuu noqday qof liibaanay adduun iyo aakhiraba. qofka naftiisa duuga oo xumaan iyo macaasi balaayo ku duugana inuu yahay qof khasaaray. waxa ilaahay intaa ku dhaaranay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo hadduu xataa uusan dhaaran lahayn dee ay xaq ahaan lahayd hadalkiisa subxaanahu wa tacaala boqolkiiba boqol hadalkiisa uu run yahay oo inuu la qaato ay waajib tahay haddana dhaar buu ku ta'kiidiyey oo haddana hal dhaar bis maahane uu intaasoo jeer uu ku soo celceliyay uu ku dhaartay bis in naftaas qofkii dahira uu yahay qof wanaagsan qof liibaanay oo adduun iyo aakhira ku liibaan. qofkii naftiisa xumeeya oo naftiisa duuga oo xumaan iyo macaasi ku duugan oo yahay qof khasaare. marka qofka inuu naftiisa xaqa ay ku leedahay uu ka soo baxo waa khaslada labaad ee uu qof wanaagsan ku noqon karo. khaslada saddexaad oo qofka haddii uu ku sifoobo qof wanaagsan uu noqon karo waa in يعني مجتمع قفك لأنه لها بين آدم كحق يكون كسب بحي يقول ريان والد كده علي قرابة يدرسك يرحمك يقويسك يمارك ثاني يجود هان مسلمين ترى يجود هان يعني بين آدم كوردن قف كستا حق وكقول يعني كسب بحي قف كستابا وحق وكام ذي هي مقامك وكام ذي قف كستا إنا سيدو إن ضدك ولا رقم تسوى ناكس إن نقطة قف كل شيء قف كستا أفر فران وقف كستا سوى ناكس ولا رقم أو أن أهين دي قف أن dadka qaarna soo dhawaysa dadka qaarna fogaan qof dadka oo dhan ba u xun qof dadka oo dhan ba u wanaagsan inaad noqoto simple hadii aad noqoto qof la jecel yahay oo dadka oo dhan jecel yihiin imagine ilmaha dhali doonta maxay noqonayaan yani ilmaha dhali doonto waxaad u sii diyaarisay dhaxal wanaagsan qof la jecel yahay oo bulshadu jeceshahay oo qabiilka iyo qoyska qaraabada iyo guud ahaan dadka oo dhan jecel yihiin haddaad noqoto ilmaha aad dhali doontana waa la jeclaan doonaa
waa jaanis waxa u furan de dhaxal fiican baad ilmahaaga aad u sii diyaarisay haddii laakiin aad bilcagsi noqoto oo qof aan yacni wanaagsanayn oo dadku jeclayn oo dadka si wanaagsan oo dhaqmin oo dadka soo dhawaysan oo qabiilkii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo bulshadii oo dhanba aan asxaab lahayn haddaad noqoto oo intaas oo dhanba ayyan jeclayn haddaad noqoto dee waa ilmahaagii dhaxal xun baad aad maaragtaani aad usii diyaarisay oo ilmaan la jeclayn oo lasoo dhawaysan oo haddii inta la weydiiyo ina ayaa tahay markii ay ku sheegaan adiga laga tawaqufo laga istaagabaad ay ilmahaagu noqon doono marka qofka inuu qof wanaagsan noqdo in saddexdaas khaslo uu ku sifoobay bay ay culimadu ay dhahaan saddexda xadiiskaas baa soo koobayaan ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan dadkana dabeecad iyo dhaqan wanaagsan kula dhaqan nabigu calayhi salaatu wasalaam jawaami'ul kalimkiisa culimadu waxay dhahaan xadiiskaas bis waa laga diyaari karay dhahaan diintoo dhan yani qawaacida diintoo dhan ba xadiiskaas waa uu noqon karaa oo asaas diintoo dhan u noqon karaa marka xaqa ugu horeeyay qofka ay ilmihiisa ku leeyihiin waa qofka inuu yani naftiisa hagaajiyo oo naftiisa dahiro in qofka uu naftiisa dahira oo naftiisa wanaajiyo qof wanaagsan uu noqdana waxay ku xiran tahay inuu saddexda khaslo ee nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska uu ku sheegay oo ku sifoobo xaqa labaad ee ilmihiisu ay ku leeyihiin ama xaqa labaad ee ilmuhu ay nagu leeyihiin intaysanba dhalan waa inaan u diyaarino hooyo wanaagsan oo iyana maaragtaanay tarbiyada kaalintii ay ku lahayd qaadata ama aabba wanaagsan oo kaalintii tarbiyada uu ku lahaa qaata aabbaha wanaagsan ee aan rabno inaan ilmaha aan u doorno ama hooyada wanaagsan aan u doorno xageen ka fiirinaynaa yani jaanib caynkee ah baan ka fiirinaynaa dhankeen ka fiirinaynaa waxaan ku qaadan doonaa casharka kan xiga marka insha allahu tacala casharkan intaasan kusoo koobaya asal allah tacala an yajcalana hada liqa fi miisani xasanatina ajmaciin asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu